soo dhawaada dhammaan saaxiibayaal. Mowduuca muuqaalkan waxaa mar kale u ciyaaraya qof kale. Qofka uu ciyaarayo dabcan waxaa ku wada ballanay lacagtan 500 ah inaa u bedelo $1000 taa oo dabcan welibana aan ku fahansiinayo algorithm-ka iyo qaabka uu u shaqeeyo anoo welibana wax lost ahaana qaadanin. $1000 ama 500 ee extra-da ah waa lacagta target-kiisa ah isaga iska leh. Wixii ka badan waxay noqon doonaan commission aniga aan leeyahay. Soo marka muuqaalkan inta ku guda jiro $1 anoo qasaarina $1000 hit gareyn doona. Mana rabo inaan muuqaal ku dheeraado. Marka hadii taa dawashada ku guuleyso channel-ka waxaa si xushmad kaaga codsanaya inaad channel-ka subscribe saarto, muuqaalkana like saarto, saaxiibadan la wadaagto. Waqti badan ma haysto waxaan rabaa inaan ka gaarsiiyo sidoo kale tana yar kala hadana isugaayo oo isagana aan rabaa u ciyaaro late time na way tahay oo waxaan rabaa inaan seexdo. Soo marka game-ka focus siinayna target-keena $1000 ah waa focus-keena game-ku akhrin karno 47 game-ka meel fiican oo gaari kara 500 waa dhiganayna 47 1.3 hadii ay ka badbaadno game-kan game fiican oo noqon kara 1.3 hadii ay ka badbaadno 1.7 inta la gaarina ka degana waaye 3 ilaa meelaha inuu ku dhaca laga yaabaa 3 almost game-ka ahaa laakiin manipulation aan dhacay sida ku muuqata oo 2.85 uu ku dhacay. Sida hore u sheegana mar walba number-ka aad ku tashanaysa qasab maaha inuu imaado, waa inaa ka hor ka degataa. Welibana probability ahaan xisaabta minus-ka ah inta ugu badan waa inaad trade gareysaa. Waayo boqolkiiba boqol xisaabta minus-ka ah markaad trade gareynayso welibana meesha aad ku talagalayso mar walba ka hor marka ku deganayso way fiican tahay. Maybe way ka badan kartaa, maybe way ka yaraa kartaa. At least 10 farqi ha u dhaxeeyo. Tusaale kale laba ku dhacaya muxuu ahayd filinaysa laba number weyn waay. Adiga 170 ama 1.70 ama 1.80 kaga dago. Tusaale kale 1.30 inuu ku dhacaya dabcan muxuu ahayd algorithm-ku uu ku siiyay. Waa inaa kaga degataa 1.20. waxaan rajeynayaa in aad iyo aad u fahantay halka trade aad qaatana sharaxaad fiican aad ka haysato. Hal trade kale ama laba trade kale aad qaadanaya welibana wax qasaare ah ma rabo inaan la kulmo. Game-kan meesha uu gaaro 2.26 game-kan probability-gan ugu hooseeya kaga degan doona 2.26 taadi kaga dego probability ugu hooseeya 1.4 uu ahaa laakiin game-kan 3 ama 4 uu noqon karaa. sidoo kale 2.26 uu ahaa 13 uu noqon karaa 8 uu noqon karaa 5 uu noqon karaa 15 uu noqon karaa. hadda almost waxaa sida ku yid gareeyay target-ka qofka aan ku wada ballanay kaasoo ahaa $1000. $1000 qofka iska leh marka hadeertan welibana waxaa qaatay laba trade oo kaliya. almost waxaa hit gareeyay target-kiisa welibana anoo dabcan ku ciyaarayo balance-ga oo dhan 500 iyo 500 ba. sababtoo ah trade-ka qaadanaya huwa inaan mar walba success noqonayo. soo hadeertan waxaa qaadanaya trade lacagtana ay yareyn doono ka oo commission-kiga ku raadsan doono. waqti badan maadaama inuu iga baxa aan rabin sharaxaad badanna aan rabin inaan galo oo almost inta ugu muhiimsaneed aan sharaxay. hadda game-kan meel aad u sareyso gaaray. game-kan hadii u badato 500 aan dhiganayna meeshan ugu possibility-ga yaraan kaga dhiganayna. game-kan caadiyana u filayo runta markaa ka hadlo waana game-ka ugu horeeyay ee aan qasaaro anoo game-ka aan qasaaray emotion-ka qaaday haddana sii ciyaaray. qaladkeyga waay dabcan 2.5 kaga dego game-kan 5 uu noqon karaa 7 10 uu noqon karaa. game-kan game-kii ka horeeyay laakiin inaan ogaado waaye halkuu ku dhacay. hadda almost 1335 aan haystaa 8.95 game-kan 500 aan dhiganayna si aan dabcan u helno $165 oo extra ah. probability-gan ugu hooseeyna 1.4 uu sheegaya 1.3 kaga dhiganayna. almost hadeertan waxaa ku hit gareeyna $1540 $500 ka soo bilaabay waxaa qaatay adiga waxaa qaatay 4 ilaa 5 trade qaatay. hal trade oo kamid ah loos garoobay halka trade dabcan
waaba sheegaba xitaa ani xitaa inaa dabcan isku hubin, laakiin probability ugu hooseeya ee number yar kaga diga dabcan ku fikiraya. waana qaladaadka mararka qaar dhaco, laakiin ani waa kasoo kabsanaya mar walbo oo dabcan wixii experience iyo waqti badan iga galeen. soo qofka haddii sida uu fahmo isagana wuu kasoo kabsan karaa, oo maahan wax ani keli igu kooban. maadaama target qofka ay gareeyo automatically waxaa u bixinaya 1500 oo ma rabo inaa dabcan minus iyo dabcan focuskayga ama targetkayga aan lumiyo. lacagtiisa bixinaya $45 bixinaya $500 nadiif ah iyo hareyso $45 almost automatically saas hadda ku bixine. marka refresh sameyna lacagta way go'aysaa almost $45 go'do $4 dabcan isagana dabcan Binance gaarayso. soo marka qof walba u baahan in algorithm-ku wax uu ka fahmo xaqiiqatan markaas hadda hadlaayo waxyaabo fara badan ama signals fara badan oo soo tijaabiyay way jiraan, laakiin signalka hadeertan ama hadda ku ciyaaro ama hadda isku dayayo in dhalinyarada fahamsiiyo 100% waa wax lagu kalsoonaan karo. qofka maskaxdiisa ee furan tahay ama qofka ay ka go'an tahay inuu fahmo uu fahmi karo, sida muuqaalka kaaga muuqato. ani dabcan wax idinka duwan ma sameynayo, kaliya waxaa sameynaya waxa idinka sameynaysaan. haddana why mar walba success u ahay gameka intuusan dhicin, why mar walba inta ka horeysa uga deganaya. taa waxaa keenayo waqtiga geliyay, fahamka ka haysto iyo waxyaabaha oo dhan oo la isku wada daray. marka muuqaalka mar rabo inaan ku dheeraado, qofka u baahan dabcan inuu algorithm-ka fahmo wuxuu igala soo xiriiri karaa dabcan calaamada gmail-ka ibrost25 oo far waaweyn ah oo Telegram-ka ah. kadibna waxaa isku dayi doonaa xilliga ay noqotaba ama waqtiga ahaayaba intii awoodo inaan ku caawiyo. marka mar rabo inaan muuqaal ku dheeraado, marka hadii taado shay ku regional ku xashashmada kaaga codsanayna jeel subscribe saarto, muuqaalkana like saarto, saaxiibadan la wadaagto. ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan.